qaar ka mid ah culimada waaweyn ee Somaliland shir jiraayad oo isaaka ku qabteen hotel Harwanaag ee magaalada Hargeysa waxa ay si adag uga soo horjeesteen go'aankii golaha wakiilada Somaliland la hor keenay ajandihii kala fadhigii 3-soddonaad ee golahaasi la hor keenay toddobaadkii hore kuwaasi oo ka digay in loo codeeyo baananka oo ay sheegeen inuu ribo yahay diinta islaamkuna aanay ogolayn culimada waaweyn oo si adag ula hadlaya xildhibaanada golaha wakiilada iyo shirgudoonka golahaasi ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa waxaynu ka cabanaynaa dhibaato abaareed iyadoo aynu ilaahay baryayno oo aynu mar walba waxa weeye masaajidada ka ducaysanayno haddii qolo kalena xagga kale ay ka fasahaadinayaan waa ayaan darro weeye doon baa la wada saaran yahay sida nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ku cabiray adduunyadan aynu saarannahay waa doontii haddii qolona ay fasahaadinayso qolona ay doonayso inay badbaado dee badbaadi mayso marka waxaan leenahay anagoo ku hadlayna afkii culimmada arrinka noocaasi wax shakiyo ka taagan ama culimo isku khilaafsan xaaraantinimadiisa isku khilaafsan ma jirto waa shay xaaraana ragga baarlamaanka fadhiyaana waxyaabaha ay ka doodayaan waa in marka hore sharciga loo bandhigaa waxa sharcigu diiday cid u doodi karaysa ama cid far u taagi karaysa ama cid odhan karaysa ha laga doodaa ma jirto wax walba waxaa fiican cidda garanaysa in loo daba fadhiisto shareecada culimmada taqaana culimmada waa in loo daba fadhiistaa culimmaduna ilaa 2016kii markii 15kii markii hawlahani bilaabmeen way hadlayeenoo waxa weeye warbixino kala duwan bay ka soo saareen waana isku waafaqsan yihiin arrinkaasi inuu xaaraan yahay cawaaqib xumo fara badanna uu ka tegayo waxa laga yaabaa afraad kooban baa dabada ka riixaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka baqaan shilimaadka ay isleeyihiin halkan aad ka helaysaanna annagaa u ducaynayna ilaahay subxaanahu wa tacaala wax ka khayr badan uu siiye inay faraha kala baxaan waxaanu leenahay kooxdaas ilaahay ka baqa haddaad ka joogsan weydaan sida jimcayaasha loogu qunuudo abaarta in ilaahay inaga qaado baa habaarkiina loogu qunuudi sujuuddaannu idinku habaari markaannu ducaysanaynaannu idin habaari culimmada oo dhan baannu u sheegaynaa in ummadda ilaahay idinka qabto waxaannu idinku nasteexaynaynaa waddankana ha gubina idinkuna ha isgubina qodobka kale aan u baxay waxa weeye waxay yidhaahdaan oo nimankaa kooxdaa yar ee la soo cabbeeyey waxay yidhaahdaan dahabshiil iyo culimmada dahabshiil iyo salaama bank ayay u socdaan uma soconno kamana mid nihin umana shaqayno waxna kuma lihin horta kow bari yeelaya culimmada inay arrintaas shaqo ku leedahay oo aanay u hadlayaan dagaal ilaahay subxaanahu wa tacaala ina la galo nimankaa baarlamankana waxaan leeyahay ee kooxdaa yara baarlamankaa haddaad ka joogsan weydaan waannu idiin digaynaa oo waxaannu leenahay ilaahay ka baqa laakiin haddaad ka joogsan weydaan idinka iyo kuwa kale idinka dambeeya ee dabada ka wada arrintan ee dabada ka soo riixaya waxaannu samaynaynaa masaajidada ayaa laga habaaraya insha allahu tacaala wixii aad ka qaadaan baad leediin qofka waxa weeyaan shayga xaaraanta ilaahay kitaabkiisii uu ku cadeeyay ee ilaa qiyaamo uu ku dhacayo ku qoran ninka qalin qaadanaya amba gacan u taagaya ee leh waan xalaaleynaya waayo waan u codeynayaa waan xalaaleynaya weeyaan oo ummadaasi waxa weeyaan ku dhaqato hal la furo waxaanu leenahay wax ummadan xaaraan ka ah cidda u codeynaysa amba carabkooda ku difaacaya amba qoraalkooda ku difaacaya ogsoonaada carabkaasi maalinta qiyaamo oo idinku markhaati furi doona gacanta taagaysan waa idinku markhaati furi doonta maskaxda ilaahay idin siiyey hadalka ilaahay baa idinka soo saaraya ummadda waxa weeyaan wax xaaraana aad doonaysaa inay ugu jidaysaan ilaahay subxaanahu wa tacaala kaga baqa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamayaa inuu hadduu ribada uu xalaashado qofkaasi diinta uu kaga baxayo uu gaal u noqonayo waxa ay qofkaasi ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa ayuu magaranaysaa la gelayaa dagaal uu kula jiraa yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha wadaruu maa baqiya min arriba in kuntum mu'miniin fain lam tafcaluu fa'danuu bixarbin min allahi wa rasuulih waxaa runtii iyana khatar ah qofka muslimka ahi inuu simo shay ilaahay xalaaleeyey iyo shay ilaahay u xarimay haddii matalan uu arko in ribadu in la qaato lagu tacaamulo ay u bannaan tahay tan kalena ay u bannaan tahay oo sidaa uu aaminsan yahayna diinta oo kaga baxaya gaalnimo ayay noqonaysa ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahy wamaa kaana limuuminin walaa muuminatin idaa qada allahu wa rasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim waman yacsi allaha wa rasuulahu faqad dalla dalaalan mubiina uma bannaana qof muumina
rag iyo dumar toona haddii ilaahay iyo rasuulkiisu arrin ay xukumaan inuu door qaadasho yeesho ma laha runtii xamse jaam xuseen telefishinka caalamiga Star Hargeysa.